waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto, waxay u daalaysaa inaad nasato, waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa inaad faraxda adiga. Video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray, ha ka qaadanin diintaada. taas diin ma aha, ha ka qaadanin diintaada halkaa. Facebook yaanu diin kuu noqonin, Google yaanu diin kuu noqonin, bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada, kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada. kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee, luqad walbay ku hadlayaan, luqadaadi hooyay ku hadlayaan. ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysa. ilaahu ihsaanka ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ihsaanka sameey ilaahu ha ka dhuminin. sidaas la doonaya jaarka inuu ahaado, jaarka inuu inama si ah ogow. يا وواحد جند لو قال لي حدنا، لكن أنا واسكو عيناه واسبسيني كي وضد قشن كقاضي وحاقي ونظيفني واسبسيني شغال اسبسيني. رسولك حل كينا كلية ما هي صلوات الله والسلام عليه أنك كلية أرنتين محلية حيوانك حتى ويا هي محي حلب ويا هي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذاك المؤمنين تأيليهين كوا اللي نبي قود الرميسان مالك قيام الرميسان oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dhikriga ilaahay. ala bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali laga yahay, mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay. ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannada. ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa mid kaliya, dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakhriga iyo kala tagga irdowga qaxa maanta jira diinta kaliya xallin karaysa weeyaan. wallahi haddaan si dhib u qaadan يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. feerahan adduunyadu qaaday ee badda ku halligay nafsadoodii adiga mas'uul ka ah u soo diraya lacagaha ku boorinaya tahriibkan halligay nafsadoodii. alla ayaan daranaa kan diintiisii nafsadiisii caqligiisii cirdigiisii iyo maalkiisiiba ku dayacay baddan oo ku doorsaday adduunyo aanu gaarayn. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأدو يراديس وحا إذنكي أبدكيني بحلقي الله ميانو حبيبكو إنو قدقين أو آنو أوران فاتقوا الدنيا كدور صدا أدونك. لا ضرر ولا ضرار. ما بنانا إن إنسان كدبو نفس الديسة أو الدنيا أحلقه إيو إنو غير كي دبو نفس الديني واد هلاكتين واد دبتين والد كينا واد دبتين واكن حد يحبين أوييو حداد سيدان كدمتid حداد سيدان كدمتid أدونكي الله وأدونتي الله حقي تقيسا آخرو إلهي سمحاد الشيء إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد،
إخوة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، والله ليال بريهن وحاسي آذا مرجنية oo aan la ololayaa uurkaygu la gubanayaa dadkeenaan le'anaya ee ku sii qulqulaya wadadan halista ah. yar iyo weyn, rag iyo dumar, curyaan iyo kulli xaad leh, waa noocyadii ummadeenu ka koobnayd oo dhan weeyaan. war dadku maxaa qaaday? dadkan maxaa waalay? xayraanka ku riday, tiiha ku riday. yah, aaway caqliyadii, aaway caqliyadii, aaway. dadkan idaylkood waxay ka imanayaan waa dalkeenii weeyaan. ilaahay ha badbaadiye. waa intii Soomaalidu degi jirtay weeyaan. waa Soomaaliya qaybaheedii kala duwanaa, waa Ethiopia, waa Kenya, waa Djibouti. ilaahay ha xifdiyo dhulalkan oo dhan iyo dhulalka muslimiinta. weliba waxay ka soo noqonayaan dadkeenu dhulalkii ay tacliimta u aadeen iyagoo aanan soo dhamaysanin. weliba marka ay marayaan marxaladii ugu dambeysay tacliimta heer jaamici, sanadkii ugu dambeeyay ayaa saxarahan Liibiya iyo Chad iyo Suudaan u dhaxeeya iyo badan ay ku dhinteen, ku leedeen dadkeeni. ayay adduunyo uga gacan haadinaysaa oo ay uga yeeraysaa. markiiba waa kuwana iyagoo dhuumanayo tahriibaya. caqligii ilaahay nagu karaameeyey aaway. war haddii dadkan caqligoodii dhintay aaway cuqaashii, aaway rugcadaagii, aaway indheergaradkii, aaway caqliyadeennii, aaway maxaa daday. dabcan waad garanaysaan wax daday waa xubu dunyaa. adduunye jacayl ayaa daday. mid kalena ogaada, insaankan qalbiga la intaanu bilaabin safarkiisan tahriibka ah, safarkiisan macsida, safarkan xaaraanta ah intaanu bilaabin ka hor waa inuu soo xanuunsadaa. wadadan intaanu saarin caqligiisii, diintiisii, nafsadiisii, cirdigiisii, maalkiisii intaanu saarin wadadan halista ah oo aanu ku luminin waa inuu soo xanuunsadaa. ilaa qof fiyow oo caqligiisu joogo, damiirkiisu qoyan yahay, halkaa ku safri maayo, tahriibi maayo. waa inuu soo xanuunsadaa oo uu ku dhacaa cudurkii halista ahaa, sunta ahaa, dilaaga ahaa ee la dhahayay buufis. waa inuu ku dhacaa. xalaqo hore ama barnaamij hore ayaan uga soo hadlay arrinkaa isaga ah. barnaamij aan ugu magac daray geeri ku raadi nolol. waxaynu nidhi buufisku waa cudur halis ah, dilaa ah oo ku dhaca qalbiga iyo nafsada oo uu keeno iimaan darri ka dhalataa adduunye jacayl. war dadkan yaacaya xaggee u yaacayaan? maxaa cayrsanaya? waa maxay waxay daba ordayaan? xaggee u ordayaan? waxaan maalin walba idaacadahaad ka aragtaan, waxaan un yaacaya, dhimanaya, la badbaadinayo. war waxaan badda un soo tufayso, saxaraha qalfoofkoodii laga soo saarayo. war dadkan maxay ka cararayaan? yay ka cararayaan? waa maxay waxa ay carabka ka daba lulayaan oo ay daba socdaan? waa adduunyo weeyaan. adduunyaa degtay laabtoodii, adduunyaa degtay qalbigoodii, adduunyaa degtay. kaaga darantay eega siday u hagaajiyeen magaceeda, siday u qurxiyeen. markaad weydiisid xaggeed u socotaa aad dhahdid, waxay ku leeyihiin nolol raadis ayaanu nahay, noloshaan daba joognaa. aaway noloshaad raadinayseen ee aad ilaahay uga furateen, ehelkiinii uga soo dhexbaxdeen ood uga soo dhuumateen.
sawkan mawdku idin kala reebayo oo meydadkii badaha looga soo gurayo qalfoofkii saxaraha bacaadka looga soo saarayo ma ah aaway noloshii war imisaad adduunyo dhex joogteen imisaad adduunyo u soo joogteen oo aad ku dhex nooleydeen war adduunyo ma barataan miyaa ma barataan miyaa adduunyo looma orod iyo tahriibidna wax loogama keeno wax loogama qaado adduunyo ilaahay baa kitaabkiisa inoogu sheegaya oo ku dhahaya famshuu fii manaakibihaa waa allihii abuuray adduunka aad u ordaysaan adduunkan ka soo qaadi maysaan kana soo dhifan maysaan wax ka badan intuu ilaahay kuu qoondeeyey kuu qorsheeyey bajedkaada wax ka badan ka keeni maysid 4 bilood uurka hooyada wixii uu ilaahay kuu qoray ka badan ka soo qaadi mayside famshuu fii manaakibihaa wardaafaheeda socda oo asbaabta qaata tartiib idinkoo aanan isdaalinin oo aanan ishalaagin adduunyada raadsada war waxa loo orda adduunyo maahe waa aakhira loo ordaa ilaahay baa meelo badan noogu sheegaya falyatanafasi almutanaafisuun وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات تنواية لو أرضوا آخر إلهي كوما سمين كوما ديارين بل وحو كسيي عمري أيو أدون كان كسيي كنت لحدا تضواتا بقول سنة أيو إلهي كسيي سياد وغشقي ستد آخر أو آد أولي ستد معها وحلا دي سنة يتن معها tan camirideeda waxaa loo camirayaa waa aakhiro adduunyaana rogtay adduunyaana baabi'isay adduunyaana halaagtay walaalayaal war xaaladeenna ilaahay baan ku dhaariye maxaa ka yeelay xaaladii reer banu israa'iil oo kale ee ilaahay inooga sheekeynayay maxaa ka yeelay suuratul baqara waata ilaahay uu ku leeyahay ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله غير بنو إسرائيل أيا أمضيه هرويان أيا ميل دقنا مركاسا إلهي فتنيي cudur baa yimid balaa timid musiiba ilaahay dul keenay markaasaa markiiba intii iimaanka darayd ayaa booday oo carartay iyagoo mawd iyo geeri ka cararaya dhaxdaa markay marayaan oo ay leeyihiin waad badbaadeen ayaa ilaahay wuxuu yiri muutu dhinta kadib buu soo nooleeyay war xaaladooda iyo xaaladeena isu eega ilaahay baad ku dhaariye in yar oo imtixaan ah haduu ilaahay noo keenay oo fakhri iyo amaan darro ah iyo wixii lamida war malaayiin baa joogta malaayiin baa ilaahay sugay oo wadankoodii degan oo ku nool oo ku guursanaya oo ku dhalaya oo wax ku baranaya oo ku dhaqan sow dadkan ka soo cararaya dhulkoodii diintoodii akhlaaqdoodii nafsadoodii caqligoodii cirdigoodii maalkoodii saaray saxaraha iyo badda sow umeeka inuu ilaahay leeyahay muutu oo ay ku wada dhimanayaan saxari ku wada dhimanayaan maaragtay badihii maalin walba badda meydkii laga soo gurayo oo saxarihi qalfoofkii laga soo qufayo sow kuwan maalin walba gacmaheena aanu ku aasna ma aha maxaan uga duwanahay reer banu israa'iil maxaan uga duwanahay weliba kuwa imtixaan ayay ahayd dib ayaa thumma ahyaahum ilaahi wuu soo nooleeyay laakiin wallaahi annaga haddaan dhimanno imtixaan ma jiro cid ku soo nooleynaysaa ma laha waxaa marka ayaan daran qofkii wadadan ku dhinta isagoo macsi ilaahay ku jira ku dhinta oo saxaraha ku dhinta ikhtilaadka adigoo gabadha xambaarsan inaad dhimatid ajnabiga kaa ah adoo hooyada iyo waalidka iyo ninkaagii ka soo dhuuntay inaad ku dhimatid adigoo baxsad ah waxaad baxsad ka tahay aakhiro waxaad baxsad u tahay oo aad u ordaysaa waa adduunyo kaa unbaa ayaan daran kii halkaa ilaahay nafsada uu kaga qaado oo uu dhaho muutu oo sidaa ku dhinta war ilaahay ka cabsada ilaahay aynu ka baqno idaylkeen walaalayaal
dhalinyaro marka aynu ogaano marka hore inaynu nahay dad muslimiin ah muslimiinna waxaynu ku noqonnay waxaanu qaadanay dhaqankan wanaagsan mabda'an wanaagsan shareecadan wanaagsan la yiraahdo islaam ilaahay noo dooray ayaanu qaadanay macnaheedu waxa weeyaan hoggaankeennii oo dhan waxaan u dhiibanay Allah subxaanahu wa tacaala arrinkeenii oo dhan waxaan u dhiibanay ilaahay wax walbo islaamkuna faro waa inaan fartoonnaa wixii aan karna ayaanu ka samaynaynaa wax walbo uu naga reebayna waa inaan ka harnaa taa ayaanu ku nahay muslimiin oo aanu ku qaadanay islaamka walaalayaal taada kale ogaada shareecadan islaamka ya waxa ilaahay inoogu soo dejiyay in uu ku ilaaliyo shan arrimood oo la yiraahdo kulliyatul khams ama ad-daruratul khams waxa ugu horeeya waa diinka waxa ku xiga waa nafsada waa aqliga waa cirdiga waa maalka intan aad arkaysaan idaylkood inaga ku intifaacayna inaga wax ku qabsanayna diinka waa wixii aynu kula xiriiri lahayn macaamiladii aynu kula xiriiri lahayn Allah subhanahu wa ta'ala waa wixii ilaahay ina bari lahaa ilaahay quraankiisa ina bari lahaa awaamirtiisa ina bari lahaa nawaahidiisa inaga celin lahayd waa waxaanu ku ogaan lahayn qaybiyaadka aakhir iyo nolosha dambe waxa adduunyo inoo wanaagsan aakhir inoo wanaagsan aan labaduba ku badbaadayna nolosheena wanaagsan waa wixii waa shaygii aan kula macaamili lahayn kula dhaqmi lahayn alle inuu xireeyay alle subhanahu wa ta'ala mar kale waa wixii nagu xireeyay insaanka ku nool uunka ee aynu la dhaqmayno waa waxa aynu ku garanayno xaq aanu ku leenahay insaankan iyo waxa aynu ugu leeyihiin wax walbo diinkaaga halis gelinaya oo uu ku dayacmayo waa in aad ka fogeysaa waa in aad ka dheeraataa wax walbo ilaalinaya ku ilaalinaya diinkaagana waa inaad ku dadaashaa waa inaad xifdisaa waa inaad dhoobdhoobtaa diinkaaga har iyo habeen nafsaduna waa waxa aanu ku dhaqdhaqaaqeen waa waxa aanu ku noolahay lama ogola in aan dillo waa waxaan ku nahay dad aanu ku nahay insaan aanu ku nahay ilaahay nagu karaameeyay weeyaan ilaahay waa ku dhahayo wala tulqu bi aydikum ila tahluka war nafsadihiina ya ha halaagina ha ku ridina halaag hasaarina wadadan saxaraha ee lagu halaagsamayo badan hasaarina oo boqolkiiba 70 ama 80 halista ah hasaarina war wadooyinkan tahriibka halisteeda badan hasaarina wala taqtulu anfusakum hadilina nafsadihina hadilina ya diinteena waxay kala u timid inay dhowrto oo ay ilaaliso aqliga awi aqligi waa maxay aqligan daboolan aqligan xanuunsaday aqligan dhintay waa maxay aqligan aynan daryeelaynin waa maxay ya ee ku dhintay uurkeena waa maxay ya ummad waalan un iska dheh hay waxay u timid diinteena inay ilaaliso cirdigeena iyo sharafkeena inay ilaaliso hay awi cirdigii marka ma cirdi baan ilaalinaa ma nasab baan ilaalinaa sharaf ayaanu ilaalinaa ya diintii noo ilaalinaysay waan dayacnay waxay kaloo u timid diinteena inay dhowrto maalka inay dhowrto maal inaadan ku cuni karin xaq darro xoolo aan xoolahaaga ahayna ma ku banaana inaad cuntid dadkan marka dadku uu ka ururinaya ee kaxaynaya meelaha uga yeeraya ee meelaha ka dafaya ee wadadan saaraya badda saaraya halaagaya waxaad garanaysaan waxa ay cunayaan xaq darro inay ku cunayaan dad dhiigii inay cunayaan dad nafsadii ay halaageen inay cunayaan dad dhiig ku nool ah inay yihiin bad ogaanaysaan dadkan mukhalisiinta ah marka soo ma garan war intan oo dhan inaga ku intifaacayna ilaahay wuxuu noogu soo dejiyay shantan shay ayuu noo soo dejiyay inaan ku intifaacna islaamna wuu noo keenay wuu noo soo dejiyay intaas oo dhan noo ilaalisa ilaahay siduu noo jecel yahay eega walaalayaal ilaahay baan ku dhaariyay ya siduu ilaahay noo jecel yahay eega aawe maxaan sameeynay annaga marka ma ilaalinay shantii shay ee daruratul khamsa ama kulliyatul khamsa ee waajibka ahayd in aan ilaalino oo aan xifdino ma ilaalinay mise idaylkood intaan qaadnay ayaanu maaragtay geynay saxarihii aan Libiya iyo Suudaan aanu saarnay baddaanu ku shubnay ilaahay baan ku dhaariyay aawi diintii
madiin baa u dhowrsoon dadkan isdhex yaacaya raggan iyo dumarkan ajaanibta kale ah maxramka aanan isku ahayn gudcurkii saxaraha wada socda ilaahay baan ku dhaariyay eega wiilkan gabadha xambaarsan oo dhabarka ku qaadanaya ilaahay baan ku dhaariyay madiin baa u dhowrsoon madiin buu ilaalinaya ma akhlaaq iyo qiyam buu ilaalinaya aaway cirdigii aaway sawka haweenkeeni la qaawinaya maaha oo dharka laga dhigaya diricii laga siibayo nigis kaliya inta lagu reebo waliba nigiskii gacanta lala sii galaya maaha oo laga soo saarayo wixii ay ku qarsadeen saw kuwan haweenkii oo dhan ay ka wada sheekaynayaan ma aha ilaahay baan ku dhaariyay hooyo 8 dhal ah dadka dirac ka siibaya oo kastuumo kale intay ku reebaan wax kala soo baxaya war meeshan meel halisa weeyaan meeshan cirdi wax la yiraahdo la dhowrayo malaha tii qurux badanna waa taasa oo waa laga shaqeynaya waa la xoogaya waa la kufsanaya war dhageysta dadka sheekooyinka idin sheegayaan dadka soo noqday eega ilaahay baan ku dhaariyay oo la sheekaysta waxaan ciyaar ma aha meesha waxa ku lumaya waa cirdi waxa ku lumaya waa diin waa maal waa maaragtay aqli waa nafsad ayaa ku lumaysa eeg ilaahay baan ku dhaariyay dadku inay qaadan yihiin insaankan marka uu ku dhinto badda ama saxaraha uu ku dhinto oo meydkiisii la keeno marka la aaso in yar kadib u fiirso dadkii aasayay ee hadda halkan murugaysnaa ayaa waxaad arkaysaa in yar kadib iyagoo haddana qalab qaadanaya oo tahriibayaad arkaysaa aaway caqligii aaway maxaa daday caqligii war maxaa inaga yeelay ummadeena ka yeelay summun bukmun umyun fahum laa yacqiluun maxaa ka yeelay ummadeeni war ummadeeni maxaa indhaha iyo afka iyo dhegaha maxaa tiray maxaa laabta tiray maxaa laabta dalooliyay ummadeeni markaad weydiisid oo aad dhahdid war hebel wuu dhintay war waxa la wada waa meyd waxayna soo aasaynay waa hebel waa walaalkeen waa walaasheen waa dariskeeni waa saaxiibkeen war waa ku sidee meeshuu ku soo halaagsamay miyaad aduguna maraysaa war qof maya tiisa dhamaatay haye ana nasiibkaygaan qabaa allah hadalka xumidiisa eega ilaahay baan ku dhaariyay hadalka xumidiisa eega maya tiisa dhamaatay أن نصيبكيان تجابنا يا الله بكون عسنتين إلهي بان كل هاريه حاجات كتجابين نصيب كاغا أيان درني حاجات كتجابين يسا نصيب كاغا موحد كتجابين إن الدين هذه نفسد هذه عقلقاقي عردقاقي حولهاقي إذيلكود انتي إلالي لغيري in aad u dhiibtid oo aad u geysid magafayaalkan inkaarta qaba ee ilaahay cirka ka soo riday oo bad iyo bariba taagan meel aanay taagnayn ma laha ma kuwaas nafsadaadii diintaadii cirdigaagii sharafkaagii u dhiibaysaa xoolahaagii u dhiibaysaa magafayaalkuna cid shisheeye ma aha ogaada ha u qaadan dad shisheeye ah wallaahi dad shisheeye inaanu ahayn wallahi shayaadiintan wareegaysa ee aanan nasanaynin har iyo habeen shaqaynaya kuwan idin qalqaalinaya idin sasabanaya idinka kaxaynaya reerihiinii ehelkiinii idinka dhex bixinaya waxbarashadiinii idinka kaxaynaya dalkiinii hooyo idinka kaxaynaya oo baddaa idin saaraya war kuwan waa magafayaal sokay sowma ogidiin idaylkood waxay la wada shaqeeyaan magafayaalkaa cadowgaa shishe ayay la wada shaqaystaan idaylkood meel dhexe markay idin geystaan oo aad wadadii ku silcdaan kaadidiina ku sii cabtaan buura dhexdood idin geystaan cirkaa fog dhulkaa fog ayay ku leeyihiin reerkaagii waco inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun eega meesha ay kugu siinayaan telefoonka oo ay ku leeyihiin reerkaagii waco waa maxay reerka aad wacanaysid waa kee reerka aad wacanaysid reerka sow reerkii aad ka soo dhuumatay maaha reerka ku raadinaya sow maaha maxaad u sheegaysaa reerka imika
dadkan waxay kugu soo kaxeeyeen markii hore waxay ahayd wax dhiba ma leh waa lagaa bixinayaa waa lagu fududeynayaa waxba lagaama rabo markaa tagtid Itaaliya markaa unbaa lacagta lagaa rabaa hadhow ayaa iska gudaysaa waa lagu ururinaa waxba maaha soo baxa lagu leeyahay waxba lagaama rabe wixii safiih aha oo wala oo fududaa maangaab caqli laawe wuu raacayaa markiiba kulligood sidaas ku wada baxaan dadkeeni rag iyo dumarba waa kan meel dhexe buura dhexdood meel aan islaam joogin arxam joogin ayaa lagu geysanayaa markaas lagu leeyahay reerkaagii waco soo dir intaas oo kun 5,000 6,000 7,000 10,000 dir hooyada markaas waalanaysaa hadday ogaato meesha aad ka soo wicaysid saxaraha mawdka dhexdiisa in uu yahay ya hooyada gambadee tuuraysaa yaa sababay adaa sababay markiiba hooyo waxay ku kacaysaa aabbo miskiin oo aan waxba haynin isagaba ayaa la leeyahay war gurigi gad war beerta gad war kan gad war maaragtay dharkaaga xataa iibi waxa laga yaabaa reerkii inay sidaaba ku kala tagaan dhici karaysa ya waxa soo dhan yaa ka dambeeya waxa soo dhan adaa ka dambeeya la hadal see loo la hadlaaya war soo idin ma dhihin kuwan magafayaalka ah kuwan soke iyo kuwa shishe waa cadow waa shayaatiin soo idin ma aanan dhihin waad garanaysaan sifada shaydaanku leeyahay ya intuu macsida ku geliyo oo uu ilaahay ka fogeeyo islaamka ka saara ayuu berina wuxuu ku dhahayaa inni bari'un minka inni akhafu Allah bari baan ka ahay ya anigu ilaahay baan ka baqayaa anigu waan ku yeeray ilaahayna waa ku yeeray anaad iraacday ya anaad iraacday anigu kuma khasbin buu ku leeyahay markuu badda ku geliyay moolka markuu ku geeyay ayuu kaaga baxsanayaa inni akhafu Allah ilaahay baan ka baqayaa buu ku leeyahay war orod iga tago ku leeyahay anigu kuma luminina kuwana gurigaagii yaa ka soo saaray shayaadiintan magafayaalka ah ka soo saaray mukhallisiinta ah iyaga ka soo bixiyay reerkii ka keenay iyaga ka soo saaray tacliimtaadii iyaga ku carab lulay markay ku keeneen ya meeshii ugu xumayd khatarta ahayd moolkii saxaraha dhexdii markay ku keeneen ayaa lagu leeyahay isfuro haday ku baaranayaan nafsadaadina way haystaan oo iyaga kule oo gacanta ugu jirtaa reerkiina waa haday u dhacayaan kista yare taali raban inay soo qaataan reerka war dadkan waa shayaadiin weeyaan iska ilaaliya yaanay idin carab lulin ma seexdaan raggan ma seexdaan adduunya degtay qalbigoodii isii maahane hoo malaha waraggan iska ilaaliya shayaadiin weeyaan waxaan waliba si aada ula siyaaba wuxuu hadii uu caqli yar yahay maangaab yahay fudaydna u dheer yahay waa la saban karaa badda la saari karaa bacaadka la gelin karaa ya kistiire uu haystay xoolaha waa laga qaadan karaa soo ma garan waa la maamulan karaa qofka isaga ah ya waa qof la maamulan kara laakiin hooyadan ilaahay baa ku dhaariyay aabahan maxaa qaaday waa yeelkan 60 jirka ah ee aad meediyaha ka arkaysaan ya jaraa'idada ku qoran war waa yeelkan 70 ka jira maxaa qaaday maxaa waalay maxaa wada ya war umadeeni waxa guriyihii ka soo bixiyay ya oo ay u yaacayaan rag iyo dumar yar iyo weyn curyaan iyo kulli xad qaba garo waa adduunye ya tii uu inooga digay islaamkeena markii ilaahay xaabada adduunye soo tiriyay haweenkii ciyaalkii dahabkii iyo doolarkii beerihii xoolihii wixii oo dhan markuu soo tiriyay macmacaankii oo dhan uu noo soo sheegay ayaa wuxuu yiri dhalika mataa'ul hayati dunya kuwa oo dhan waa mataa'ul hayati dunya waa dhalanteed weeyaan ya waa dhalanteed waa waxaanan waareynin waa wax yaroo macmacaan oo imikaba ka tagaya ama adigoo nool bay ka tagayaan ama iyagoo joogaad adigu ka tagaysaa oo rasuulkeenuna leeyahay sallallahu alayhi wasallam fattaqu dunya war ka dhowrsada adduunkan ilaahay idan dhex keenay ee macmacaanka ah cagaarka ah indhaha iyo laabta u roon war ka dhowrsada ilaahay wuxuu idin keenay inaad ururisaan oo aad ku farabaxsataan maaha inaad iska ilaalisaan adduunyadan
inaad ka dhowrsataan baahidiina oo keliya inaad ka qaadataan ugu kaalmaysataan aakhiro taa inaad dhisataan ayuu ilaahay idin keenay tan camira laakiin ku camira caafimaad middaa kalena dhistaan marka walaalayaal ogaada tahriibka loo tahriibaya adduunyo ma banaana waa shay xaaraam ah qatcan weeyaan qofkii intuu dhageysta hadalka kadibna safra oo dheg jalaq u siin waaya oo dhaha kaa tiisa dhamaatay anna nasiibkaygaan tijaabinayaa waa loo yaabaa wallahi waa loo yaabaa ilaahay iimaanka inoogu sugo qalbiyadeena allaha sugo tathbiit allahayna siiyo walaalayaal waxaan kaloo dhambaal gaara u dirayaa kuwa meesha fog uga dhawaaqaya masaakiintan u gacmo haadinaya u fududaynaya safarka oo ku dhiirigelinaya ku boorinaya inay saxaraha soo maraan oo halkaa ay diintoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii lagu dhaco halkaa inay ku halaagsamaan soo saaraya badda kuwa iyaga ah waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada dadkan ma jeclidiin haddaad jeceshihiin waa badbaadin lahaydeen haddaad jeceshihiin waad reebi lahaydeen waxbarashadoodaad ku reebi lahaydeen ood ku dhiirigelin lahaydeen dadkan waa dad nolol haysta weeyaan halkanay nolol ku haystaan wax maanta gaajo halkan ku haysaa ma laha kulli waa kuwan idaylkoodii war malaayiin baa ka dambaysa malaayiin bay ku dhex jireen inta kaleba way nool yihiin ma ordayaan dadkan adduunya laabtoodii degtay qalbigoodii baa dhintay dadkan dad qaadan weeyaan dad waalan weeyaan waalida inaad ugu kaalmaysaan ma aha qofku waalan wuxuu doonu sameeyaa inaad ku sii kaalmaysaan ma aha waxaad ogaataan qofkan qaadan hadduu saxaraha ku dhinto hadduu saxaraha kaadi ku cabo hadday ku dhintaan waxaad ogaataan qayb inaad ku leedihiin dadka lacagaha soo dirayow ama waalid ahaw ama walaal ahaw qayb baad ku leedahay ogow maalinka qiyaamana waxaad soo baxaysaa adigoo halkaa kaaga qoran tahay aayisun min raxmat illah waa xadiid saxiix ah waxaad ka quusatay naxariistii ilaahaye ogow maalinka qiyaame waxa dadka janno geeya waa naxariista alle acmaasha aynu samaynaa nama geynayaan janno laakiin waxaanu ku helaynaa naxariistaas ayaa ina geynaysa janno adigana naxariis heli maysid maxaa wacay insaan ayaad ku dheeshay noloshiisii diintiisii ku ciyaartay nafsadiisii ku ciyaartay caqligiisii ku ciyaartay cirdigiisii ku ciyaartay maalkiisiina ku ciyaartay dadkan haddaydan idinka ahayn ma ayan baxayn qof walba wuxuu leeyahay lacag baa walaashay ii soo dirtay 5,000 baa la ii dhigay xawaalad 10,000 baa la siiyey xaggaasaa wax la iga ballan qaaday idinka u carab lulaya u carab laalaadinaya waa ka xabiibkeenu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof dhimashadii haddaad shatra alkalima kaga qayb qaadatid nisf alkalima kelimad nuskeed umbaa tiri adugu kii kalena tul intuu yiri ayaa qofkii sidaa lagu dilay ama uu ku dhintay maalinka qiyaama halkaasay kaaga qornaanay aayisun min raxmatillaah war dadkan adiga waxaad kaga qayb qaadatay dhiirigelintii iyo tashjiicintii boorintii bal xoolihii oo aad u soo dirtay ayaad kaga qayb qaadatay noloshooda inta dhimatay oo dhan wallahi qaybaad ku leedihiin ilaahay ka cabsada ummadeena ilaahay waxaan uga bariyay ummadeena caqligeedii inuu u soo celiyo rushdigeedii inuu u soo celiyo iimaankeedii inuu u soo celiyo qalbiyadoodii inuu u soo celiyo ilaahay inuuna sugo ilaahay amnigeennii ha soo celiyo ilaahay fakriga hay naga saaro berisamaadkeennii hay noo soo celiyo inta dhimatayna allah u naxariisto dadkii ay ka tageenna samir iyo iimaan allah ka siiyo adduunkanna ilaahay nagama saaro ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu ka tagno rasuulka maciisa jannatul firdaws allah isugu kaageeyo inta ayaan kusoo gabagabaynayaa astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ha ha ha
u gaajoonaysaa inaad dheregto waxay u daalaysaa inaad nasato waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga video iyo sawir la keenay oo internet iyo facebook lagu soo tuuray ha ka qaadanin diintaada taas diin ma aha ha ka qaadanin diintaada halkaa facebook yaanu diin kuu noqonin google yaanu diin kuu noqonin bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee luqad walbay ku hadlayaan luqadaadii hooyay ku hadlayaan ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysaa ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado jaarka in lagu si ahay ogow يا وواحد جند اللي قال لي حدنا لكن أنا واسكو عيناه واسبسيني كي وضد قشن كقاضي وحاقي ونظيفني واسبسيني شغال اسبسيني رسولك حل كينا كلية ما هي صلوات الله والسلام عليه أنك كلية أرنتين محلية حيوانك حتى وياهي محي حلب وياهي صلى الله عليه وسلم وأنا ذلك المؤمنين تأيليهين كوا اللي نبي قوض الرميسة مالك قيام الرميسان oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dhikriga ilaahay ala bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali laga yahay mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku gali lahayd jannada ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa mid kaliya dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakhriga iyo kala tagga irdowga qaxa maanta jira diinta kaliya xallin karaysa weeyaan wallahi haddaan si dhib u qaado